Arsenal oo hartay iyo PSG oo si toos ah isaga xaadirisay finalka Champions League. Arsenal ayaa tartanka Champions League kaga hartay heerka semifinalka iyadoo hal talaabo u jirtay inay gaarto finalka kadib markii ay guuldaro kala kulantay PSG. Lugtii labaad ee ka dhacday Parc des Princes ayaa ku dhamaatay 2-1 oo ay ku badisay PSG, taasoo ka dhigtay natiijada guud 3-1 oo ay kaga adkaadeen Arsenal. Fabian Ruiz iyo Achraf Hakimi ayaa u dhaliyay goolasha PSG, halka Arsenal ay goolka kaliya ka heshay Bukayo Saka. Natiijadan waxay ka dhigan tahay in Arsenal ay weli sugayso hanashada koob weyn tan iyo markii ay qaaday FA Cup-ka sanadii 2020, iyadoo ay weli wax koob ah ku guuleysan Mikel Arteta oo tababaro u ah. PSG waxay finalka Champions League la ciyaari doontaa Inter Milan oo Barcelona kaga adkaatay 2 kulan oo taariikhi ah kuna dhamaadeen 7-6 isku darka labadii lugood. dhanka kalena haddii aan eegno wararka kale ee ciyaaraha, waa doqomo iska hadla garsoore Marcinag oo si kulul ugu jawaabay eedeymaha Barcelona. Garsooraha kulankii Inter Milan iyo Barcelona, Simon Marcinag, ayaa si kulul ugu jawaabay dhaleeceynta uga imaanaysa tababaraha Barca Hans Flick iyo ciyaartoydiisa kadib guuldaradii ay kala kulmeen Inter Talaadadii. Barcelona ayaa si joogto ah u cambaareynaysa qaabkii Marcinag uu u maamulay ciyaarta, iyagoo sheegay in go'aanadiisa ay si toos ah u saameeyeen natiijada ciyaarta. hase yeeshee markii la weydiiyay aragtidiisa ku aadan hadallada Flick, Marcinag wuxuu yiri hadallada ay sameeyeen Flick iyo ciyaartoydiisa waa kuwo nacasnimo ah. maxaan ka dhigi karaa hadallo doqonnimo ah, anigu ma dhaawicin qofna. markii dambe waxaa sidoo kale la weydiiyay aragtidiisa ku saabsan baaqii uu Pedri u jeediyay UEFA si loo baaro qaab garsoorkiisii, wuxuuna si qosol ah uga jawaabay waan u furanahay wax walba. kooxda Barcelona waxay si xoogan u aaminsan tahay in haddii garsoorku cadaalad noqon lahaa ay si sahlan u garaaci lahaayeen Inter, balse Marcinag wuxuu rumaysan yahay in Barca ay kaliya yihiin koox guuldaro xumadeed la ildaran. adigu ka daawad ahaan maxaad aaminsan tahay in Barca laga heliyaa mise inay tabartooda meesha dhigtay? ma garsooraha ayaa saxan mise Barca ayaa saxan? aragtidaada qaybta hoose ee comment nagula wadaag. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.